السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أصحابي سو دبادة وولاشين مزمل كوكن إن هديتها مركو كوهر أدا وتجنال كان فضلا سبسكرايب صار oo gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco fiidiyoo walba aan soo geliyo hadaad ka hesheen like dheh oo wixii fikradan commentiga oo la sii wadaag asxaabtaada maasha Allah asxaabi maanta waxaan sameeysanay waa u jeedin waa ceeshka siira oo si fudud aan u sameeyay waa laba nuuc ceeshku waa laba nuuc mid birta canjeeradan ku sameeyay oo saliidan ku sameeyay midna saliid ma walaha soo ma jeedin waa qaleel saliid la'aan ayaan sameeyay marka ila daawada sidaan u sameeyay ila daawada insha Allah بسم الله أصحابي ماشي waxaan ku haysto waa 3 koob oo bur ma fahamteen waa adii qiyaas ahaan waa nus kiilo iyo ruwac waa nus kiilo ruwac waxa ku dar waa vanilo ama carfiso hadaadan haysanin heela ku darsanay ma fahamtay 3 qaado oo sokor aan ku daray 3 qaado oo sokor waaye nus kiilo burkan waa nus kiilo iyo ruwac qiyaas ahaan waa nus kiilo iyo ruwac darto ku cabiro koobka waxaan ku daray waa cusbo yaraan ku daray waxaan kaloo ku darayaa caano booro haduu alla idmo 3 qaado caano booro ah waxa waaye leewtidaan ku daray 3 qaado caano booro aan ku daray kadib leewtidii aan ku soo daray waa u jeedin hal qaado leewti aheed waa u jeedaa 3 qaado oo caano booro ah aan ku soo daray waa isku dhaxasaa marka intaan u jeedaa intaan biyo ku shubin ka hor horta is dhaxgelinaya si fiican oo isku dhaxgelinaya waa u jeedin inaan is dhaxgelinayo si fiican oo isku dhaxgelinayo alla idmo kadibna waan qasaa gacanta la galan fahamto waan qasaa alla idmo ila daawada waan qaseena kadib waa u jeedin biyaan ku soo shubay waan qasaa marka waxaa si fiican u qasayaa marka si fiican u soo xasho kadib isku soo laabanayna haduu alla idmo hadda soo saliidan marinaya waa soo xashaa marka si fiican soo diyaar ah aan intu soo haduu alla idmo waa arki doontiin insha Allah waa si fiican u soo xashaya marka waa arkaysiin waa jeedin ma sha Allah waa soo xashay si fiican u soo xashay sidoo soft u soo baxay jilaac waa u jeedin sama indhiina macallin waa daboolaya kadib isku soo laabanayna ma sha Allah waa u jeedin daqiiqada kadib dhowr daqiiqadood 15 daqiiqo oo kale kadib waa kana cajiinkani waa noo soo qamiiray sidoo soo baxay u jeedin liisha inuu soo qamiirno u jeeda daayla inta meen soomahan waa u jeedin ma sha Allah hadda waan soo jarjaray markaan soo jarjaray waan kuskusaya marka duu alla idmo waa u jeedin kuskooda hadda ku kuusay soo kuskusa ayaga dhan aan kuskusa waan fidinaya waan ila socon doontiin insha Allah hada fadlan hada channelka cusub tahay subscribe haddaad hore noola sii joogteen like wixii fikradahna dhinaca commentiga la aad insha Allah waa u jeedin ma sha Allah waan soo dhameeyay waa soo kuusay u jeedin adi 14 xabo oo kala noqdo qiyaasti hadana waan fidinaynaa haduu alla idmo markaan fidiyo waa arkaysiin ila daawada ila socda insha Allah hadda waa fidinaya mid koowaad hadda aan fidiyay waa u jeedin waa ila socon doontiin haduu alla idmo insha Allah size-kiisa raba inaan xoogaa yar oo ii weynaado ilaa inta uu noqdo waxaan u sii fidinayaa u jeedin ma sha Allah marka ii sheeg adii size-kan intaanan ka rabaa marka daarto ka yareysan kartaa daartuna waa ka weyneysan kartaa ma fahamtay aan size-ka intaas u rabay haddana kii labaad aan soo qaadanayaa waa fidinaasane tabtii hadoo kale le mara hadii alla idmo kii labaad aan soo qaatay waa u jeedin inaan fidinayo waan fidinayaa marka asxaabi baroobeeya wax walba soo baroobeeya waxaan qof uurka hooyadii kala soo baxa malahan sooma qof walba banaankaas ugu bad inta taqaana way taqaana intaan aqoonin iska barato
maasha allah. Waxaa ka dhigan kartaa quraac, waxaa ka dhigan kartaa casho, waxaa ka dhigan kartaa qado. Xilli waqti wuxuu diidaa lama arko. Qadana ma diidiyo ceeshka. Quraac sidoo kale, casho sidoo kale. Inta waa u diyaar. Ma fahamti? Kaas marka waa soo dhameynayaa. Markaan soo dhameeyo isku soo laabanayna. Waa u jeedin markaan soo wada fidiyaa si dhan. Waa u jeedin haddana maasha allah. Birtiyan soo saaray. Birta markaan soo saaray hoos inuu iga soo gaduutaan sugaa marka saliidaan ku shubay. Waan gedinayaa marka hoos gaduud uu ka noqdo waa gedinayaa. Waxaan rabaa marka ceeshka inaan u sameeyo laba nooc, ma fahamteen? Midkaan aan ku sameynayo birta canjeerada inaan ku sameeyo, midka kalena birta ceeshka looga talgalay oo maxaa la shabaq inaan ku sameeyo rabaa. Waayo qofkii nacay saliidas badan wuxuu ka dhigan karaa dhinac birta shabaqa uu ku sameysan karaa. Waan ila arki doontiin saa u sameynayo hadduu Allah idmo. Ayadoo birta shabaqa aan ku sameynayo waa soo duway waa arki doontiin hadduu Allah idmo. Laba qayb aan ka dhigay. waa u jeedin qaybta maasha allah gaduud ay kor ka noqotay hoosna waxaan rabaa gaduudkaas oo kale inay noqoto ma fahamte ya maasha allah ma u jeedin waa kana qaybta xigtana oo maxaa leeyahay oo shabaqa aan ku sameynaa inday qofka saliid nacay uu ku sameysan karaa mid ma fahamte dadka isku wada mid maaha dad saliid nacay jirto saliid jecel jirto ma fahamte marka hadaa saliid aan ciis ku sameysan midkan kala shabaqa waa kaas wax saliid ma lahan dufan dhan ma lahan wax ma lahan koriyos maasha allah sana gaduud aan ka dhigayaa korkaas gaduud oo ka noqdo hoosta waa arki doontiin la socon doontiin insha allah sidoo ku soo baxana waa arki doontiin maasha allah wali waxa u dhiman xogaa yar waan dabkan ku sii celinayaa waxaan rabaa maasha sidoo kor oo kale inuu kor iyo hoos waxaan rabaa ku wax fooran lagu sameeyo camal inuu noqdo gaduud uu noqdo rabaa insha allah ceerin iyo cajiin maro gees yar ka dhiman geeskaas hadana aan saarayaa waa u jeedin maasha allah marna waa ka dejinayna hadduu Allah idmo marka waana soo diyaarsanayna sidoo ku soo baxay ay arki doontiin marka insha allah maasha allah u jeedin sidoo ku soo baxay waa midkan aan ku sameeyay birta ma fahamtay oo birta shabaqa sidoo ku soo baxay u jeedin sidaan quruxdan badan ayuu ku soo baxay ya kan kalena waa arki doontiin isagana sidoo qurux badan uu ku soo baxay labadaba ma kala dhacaana ku dheh man laga sheekeyn karo maasha allah soo dhawaada asxaabteeda mar waliba qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada maasha allah waa u jeedin waa kii labaad maxaa la nooc saliid aan ku sameeyay ma fahamtay ya maasha allah mar walba soo dhawaada inta mar kale aan ka wada kulmi doono hadduu Allah idmo waxaan iga tagayaa khayr iyo caafimaad amaana allah salaamu calaykum.